Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Aflah Academy. Today, حرنا إن نسيقول قلنا CASHARKII WADASHEEKEYSI. This was WADASHEEKEYSI لبعض. وحان صو برني WADASHEEKEYSI أما WADASHEEKEYSI كان ما نحاول WADASHEEKEYSI باو. The first one was conversation A and this one is conversation P. So what is the main content of conversation B? We have seen conversation A, what you are talking about, and conversation P, let's see what we are going to talk about. So this is Aflah Academy. Please subscribe the channel. If you are there before, can you comment, share, and like it? So let's go to our class. So here we have Aisha, Ali. They are the questionnaire. This is the questionnaire, the respondent here. Aisha, she's saying here, good morning, Ali. Good morning, Ali. Ali said, morning to Aisha. How are you feeling? How are you feeling? Aisha, I'm good. Aisha, I'm good. What about you? I'm good. What about you? Ali, nice, dear Aisha. Nice, dear Aisha. Aisha, are you going to the library? Are you going to the library? Ali, no, but I'm going to the market. No, but I'm going to the market. Aisha, what are you going to do there? Ali, I'm going to greet my uncle. I'm going to greet my uncle. What is he doing there? Ali, he's a shopkeeper. He's a shopkeeper. Aisha, thank you. Aisha, thank you, Ali. Ali, you welcome Aisha. You welcome Aisha. So that is our conversation today here. So let's translate it into Somali and see how they are talking and what they are saying. So here, Aisha said, good morning, Ali. Subax wanaagsan Aliyow. No? Gabadhi ayaa bilowday waxay ku tiri, good morning, Aliyow. Aliyow subax wanaagsan weey. Aliyow, Ali la weydiinaya. Yani waxaa la subax wanaagsan. And Ali wuxuu ugu jawaabay, morning to Aisha. Subax la mid Aisha. How are you feeling? Said Remusawa. How are you feeling? Ka waran caafimaadkaaga iyo jawgaaga ka waran see tahay weey. Then Aisha waxay tiri, I'm good. Aad baan u fiicanahay. What about you? Adigana iska waran. Anigu waan fiicanahay. Adiguna iska waran. Ali wuxuu ugu jawaabay, nice, dear Aisha. Aad baan u fiicanahay Aisha. Aisha aad baan u fiicanahay. Nice waxa weeye waa good amal. Good amal ay turjumaysaa. Nice, dear Aisha. Aisha aad baan u fiicanahay baayo. So Aisha waxay tiri, I am going to the library. Miyaad u socotaa maktabad? So library waxaa la yiraahdaa, this is a room. A room for keeping stationaries. Stationaries like the books, any kind of book, the rulers, everything. So majorly is used for reading. Yeah, how is the Amalan Wahia? So are you going to the library? Miyaad u socotaa maktabad weeye? Ali wuxuu dhahay marka, no, but I'm going to the market. Maya, laakiin waxaan u socdaa buu yiri, suuq ayaan u socdaa. Aisha way tiri, what are you going to do there? Maxaad rabtaa inaad ka soo samaysid halkaas? Ali wuxuu ugu jawaabay, I'm going to greet my uncle. Waxaan rabaa inaan soo qaraab salaamo ama inaan soo salaamo ehelkayga. Uncle waxaa weeye the brother of your father. Uncle waxaa weeye the brother of your father. Aabba walaalkiis weeye. Okay, Aisha marka way tiri, what is he doing there? Muxuu ka qabanayaa halkaas weeye? Muxuu ka qabanayaa halkaas? Ali wuxuu dhahay marka, he's a shopkeeper. Shopkeeper waa dukaanle. Shopkeeper waxaa la yiraahdaa, shopkeeper waxaa la yiraahdaa is the person who sells, yes, shops.
or goods or services in a shop, right? That's called a shopkeeper. So he's a shopkeeper. How are you going to can let Aisha marka waxay tiri thank you Ali. Ali waa aad mahsan tahay bay tiri. Ali marka wuxuu dhahay you welcome Aisha. Soo dhawow Aisha soo dhawow ee ku soo dhawow halkaan ku soo dhawow. So casharkan gudaha intaan Aisha iyo Ali ayuu u dhaxeeyay. Waxaan aragtaa qaab ay wada hadlayeen. Waxa uu ekeed qof ama laba qof oo muddo isku dambeysay is arkeen. Marka fadlan channelka dadku cusub tahay saaraan ku sheegay subscribe saaro si shirgare muuqaalada insha Allah.